Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Kusoo dhawaada ST Something. Haddii ay tahay markii kugu horeysay aad soo booqato channelkan, fadlan subscribe saar mahadsanid. Haddaba asxaabe channelkan waxaan ka codsanayaa inaad subscribe saartaan. Channelkan waxaa lagu magacaabaa PUBG Mobile. Haddaba haddii aad xiisayso ama aad taageertid gamemka sida PUBG oo kale, haddaba channelkan waa channelkaaga, fadlan subscribe saar oo ku caawi subscribe. Haddaba linkiisa waxaa ka heli doontaa comment ugu horeeya ama description-ka. Okay, barnaamijkeena maanta wuxuu ku saabsan yahay sida thumbnailka ku soo aragteen sida loo jabsado WhatsApp. Macnaha waxa weeye sida aad qof asxaabta ula sheekaysto oo kale, sida aad u ogaan lahayd waxa ay ku wada hadlaan. Haddaba kusoo dhawaada barnaamijkeena maanta. Haddaba asxaabe inta aan barnaamijkeena aanu bilaabanin, waxaan idin sameynay groupkaas oo lagaga caawin doono waxaad ka caawinaysid dhinaca tiknoolajiyadda, haddii noqoto YouTube, haddii noqoto website, waxaas oo dhan. Haddaba haddii aad doonaysid inaad groupka kusoo biirtid, waxaan idin dhigi doonaa description ama comment-iga. Dan aanu guda galno barnaamijkeena maanta. Ugu horreyn waxaa laga baahan yahay inaad saaxiibka mobilka ka soo qaadatid, kadibna WhatsApp ayaa geynaysaa. Markii aad WhatsApp geysid oo uu sida tan kugu soo kaco, waxaad ku dhufanaysaa qofkii aad doonaysay in macluumaadkiisa aad rabtid oo waxyaabaha ay ku wada hadlayeen aad doonaysid in aad ogaatid. Waxaad geynaysaa ugu horreyn qofkii aad ku dhufanaysaa, kadib markaad ku dhufatid waxaad ka sii dooranaysaa saddexda dhibcood ee xagga sare saaran. Marka aad saddexda dhibcood soo dooratid, more ayaa kasii dooranaysaa. Then markaad ku dhufatid export chat ayaad ka dooranaysaa. Markaad sidaa usoo dooratid, kadib waxaad ku dhufanaysaa include media si ay sawiradii wixii dhan ay ku wada raacaan. Haddii aad kale ku dhufatid, waxaa ku raacaya bes qoraaladii. Wuxuu kuu saarayaa lambarada ugu jira oo dhan, kadib waxaad ku dirsanaysaa lambarkaaga. Marka aad lambarkaaga ku dirsatid, haddaba waxaad ujeedin inuu dhacay iyadoo warqad ahaan ah. Haddaba waxaad sameynaysaa waad ka delete garaynaysaa saaxiibkaas si uusan u dareemin. Markaad ka delete garaysid, waxaad u imanaysaa WhatsApp-kaaga. Okay, aynu eegno sida uu noqdo warqadaasi. Waxaanu soo furannaa WhatsApp-ka kale ee nagu jira aanu fariinta ku soo dirnay. Kadib markii aanu soo furano, waad ku dhufanaysaa qofkii kuu soo diray fariinta ama saaxiibka. Haddaba ujeedin waxaan ku dhufanaynaa warqadii aanu soo dirsanay markii dhaweyd. Then markii aad ku dhufato wuxuu si direct ah ku geynayaa Google Chrome. Markuu ku geeyo inuu soo saaro wada sheekaysigii ka dhacay labadii qof ee saaxiibada ahaa. Waad ujeedaan haddaba xilliga la diray 14 bishii 2020 iyo saacadda ujeedaan iyo wixii ay isku yiraahdeen intaba ujeedada. Haddaba macluumaadkii oo dhan waa kuwa. Kadib saaxiibka dareemaya inaad ka dirsatay sababtoo ah waad delete garaysay chatkii aad adiga ahayd, adigana waad heshay fariintii aad doonaysay. Haddaba ku mahadsantahay daawashada aad daawatay muuqaalkan. Fadlan haddii aad ka heshay muuqaalkan like saar, haddii kalena dislike. Mahadsanid.